waxaa dhawaanahanba deegaanka Buuhoodle ka socday dhisme guri loo dhisayay caruur agoon iyo rajay ah oo uu dhalay Allaha u naxariistay Kayse Samatar Baxnaan oo ku dhintay dagaalkii Kalshaale sidoo kalena ay xaaskiisu ka dambeysay muddo gaadhaysa 7 casho ayaa waxa ay ka tageen labadan marxuun caruur gaadhaysa 9 kuwaas oo ku nool deegaan miyi ah oo ka agdhow magaalada Heegaale isla markaana aan haysan daryeel waxbarasho iyo mid nololeedba waxaana gurigan uu soo gaadhay meel wanaagsan isla markaana waxa uu u baahan yahay in la saaro jiingadii sidoo kalena lacag dhigo isla markaana la salaaxo gurigan ayaa waxa halkaas soo gaadhsiiyay walaalaha islaamka ee jecel khayrka waxaana gacanta ku hayay Sheekh Cabdirashiid Xaaj Samatar isagoona ka warbixiyay lacagihii u dambeeyay ee soo gaadhay gurigaasi isla markaana u duceeyay cid kasta oo ka soo qayb qaadatay iyo kuwan hadda ugu dambeeyay ee iyagu lacagaha soo gaadhsiiyay alxamdulilaahi rabbil caalamiin والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما أنتوا أي تاريخ تاي لبي الله باتنكي بشي كوباد كن يسقال بقولي سنة طبعا وحان شوقنا قرقي لورد سيئة دتك محسنين تايود سيئين caruurtii agoonta iyo rajada ahayd ee ilma Kayse Samatar Baxnaan walaalayaal waxaan idinku bishaareynayaa dadkii waxooda ku bixiyay dadkii soo ururiyay maanta insha Allah waxaan idin hayaa war bishaare la ku farxi doontaan waxaan u maleynayaa iyadoo si isku dhigan yahay baa isugu keen dambeysay maantana waa aragtaan qorigii waa saaran yahay waa qurxiran yahay wuxuu u baahan yahay jiingadii iyo salaaxmadii iyo cagdhigii iyo shaqooyinkii kale waxaan leenahay cid kasta oo ka qayb qaadatay Rabbi subhanahu wa ta'ala ha ka abaalmariyo miisaanka xasanaadkana Allah ugu daro meeshay ka soo saareen wax ka khayroon Allah ugu bedelo dadka kulley hadda wixii u dambeeyay soo diray ee aan xusuusnahay waxa kamid ah ururka midnimo ee reer Khaatumo oo aan ka helay lacag 1850 ninka la yiraahdo Naaleeye Yuusuf Xasan oo reer London Ingiriiska magaalada la yiraahdo Birmingham oo aan ka helay 1300 nin la yiraahdo Yuusuf oo London Ustri wadanka Canada magaalada London Ustri oo soo diray 476 nin Yuusuf la yiraahdo Kuwait ka soo diray $100 lacagtaas ugu dambeysay runtii haddaan cidi laaway hayga raalli ahaato waxaanu u jeedaa dadka muxsiniinta ah ee lacagtaana soo gaarsiiyay ee dadka ka soo qaaday muxsiniinta walaalahooda ka soo ururiyay ilaahay waxaan u weydiinaynaa cid kasta oo ka qayb qaadatay ama lacagta bixisay ama ururisay ama u raadisay oo u hadashay in ilaahay subxaanahu wa ta'ala wax ka qaroon ugu bedelo akhriya adduunba ilaahay waxaan u weydiinaynaa rabbi subxaanahu wa ta'ala adduunka inuu maalkooda iyo ubadkooda ilaahay subxaanahu wa ta'ala iyo camalkoodaba u barakeeyo aakhirana waxaan u weydiinaynaa rabbi subxaanahu wa ta'ala inuu ka waraabiyo jannadiisa firdawsa cadaabul qabri iyo cadaabka jahannamana kaga badbaadiyo runtii waad arkaysaan walaalayaal lacagayowgii horaan idinku soo sheegay lacagtaasuna dib bay ka timi gurigiina waad arkaysaan haddana deyn baa lagu leeyahay guriga waxba lagu leeyahay gurigu waanigii maalintii dhaweeyay idin sheegay suuliga iyo barkada waxaan dib ugu dhigay waxaan guriga barkada iyo suuliga waxaan dib ugu dhigay in horta marka hore aan idin tuso guriga oo dhismay insha Allah waxaan rajaynayaa jiingada iyo deynka iyo suuliga iyo barkada inaad ka qayb qaadan doontaan walaalayaal Allah idin barakeeyo wixii loo dhaqaaqo runtii ilaahna suura galiya si fudud bay u hirgalaan waa aragtaa walaal gurigii maalintiisa uu keen dambeysay sidaas ku dhignaa maanta 3 mitir iyo badh baa kor u dhisan yahay qorigiina waa saaran yahay waana qor xiran yahay in jiingadii la saaro la salaaxo oo lacag dhigo suuliga iyo barkadana loo sameeyo ayaa u hadhay wuxuu ka kooban yahay hadda guriga dhisani 3 qol oo hurdo ah iyo kijadii wax loogu karinayay deerka sare waa qabya waxaan isiri marka hore
waa intaasoo wax loo waayaaye aad ugu tuuntuunsatid meeshii ay ku hoyan lahaayeen dadkaasi walaalayaal waa ogtihiin waa agoon waana rajo ciddii ka qayb qaadataana ilaahay agtiisa ay ka helaysaa kuwii hore ee ka qayb qaatay iyo kuwii hadda soo dirayba ilaahay waxaan u weydiinayaa inuu bedel khayr qaba siiyo waxaan leeyahay walaalayaal waa hawshii iyo camalkii aad qabateen waa dhowdhow yahay ha ka caajisina inta hadhayna soo dhammaystira allah idin barakeeyo aakhiriya adduunba ilaahayna waxaan u weydiinayaa cid kasta oo guriga ka qayb qaadata oo ama af kaga qayb qaadata ama adduunyo kaga qayb qaadata in ilaahay wax ka khayroon ugu bedelo ilaahay subxaanahu watacaala aakhiriya adduunkana labadaba abaalmarintooda uu ku helo baan ilaahay u weydiinayaa wasala allahu calaa sayidina maxamedin wacala aalihi wasaxbihi bismillah waxaan jeclahay mar kasta inaan u mahad celiyo ilaahay subxaanahu watacaala awoodda leh mar labaadka gabdhihii hawshan bilaabay anis cali diiriyena cali mire oo runtii hawshan bilowgeeda iyo abaabulkeedaba lahaa ilaahay waxaan si gaara ugu weydiinayaa inuu ka abaalmariyo iyaga iyo intii wax bixisayba mar labaad iyo mar saddexaad baan ku celcelinayaa waana mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bacda kalshaale insha allahu runtii saxaafadda oo ka qayb qaadatay iyaduna mar walba aad baan ugu mahad celinaya ilaahay baa mahadle saxaafadda oo door muhiima ka qaadatay gurigan iyo dhismihiisa oo iyadu mar walba meesha uu marayo iyo baahida jirta si hagar la'aana usoo gudbisa cabdicasiis iyo raggiisana ilaahay waxaan leeyahay allah ka abaalmariyo wajazaakum allahu khayr wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bismillahi raxmaani raxiim dee hadal wacdi iyo diini iyo waanaba waxaa yidhi xaaji cabdirashiid xaaji samatar iyo dadkii hawsha waday iyo kuwii soo diray isna waa maanta waad aragtaano inuu qorisaarkii iyo 3 qol iyo kijadii iyo deyrkiiba u dhisan yihiin waxaan leeyahay oo inku boorinaya war agoontii xaggaad ku ilowdin war waxaasi waxba kala wadi maayaan war 9 qof oo agoon iyo raja abaa ilmo kaysa samatar baxnaan war dadka dalka ku dhibanayay ee cadowga ka celinayay waa dhinteen war inta ay dhaleen ka tageen in la dabad iyo dalba wax laga qabto oo wax loo qabto oo ka curyaamo wax la qabto oo ka dhaawacmo wax loo qabto yaa loo baahan yahay dadkii halganka galayna waxaan leenahay qaatumo midnimo ururka qaatumo midnimo ha ugu horeeyay wax badan ay soo direen waa aragnay dad badan ay caawiyeen waa aragnay dhamaantii waxaan leenahay war dabad iyo godob anaguna sakadaanu xagga ka ururinayna idinkuna xagga ka soo bixiyay sakadaaba ku filan war dadkooda iyaga wuxuu qabta waana ku maadsan yihiin ciddii wax qabatay warbaahinta culimaa u diinka cidda jeebkooda ka soo saartayna ilaahay sida sheekhu sheegay dee wax khayr qabo ugu bedelayaa war dadkii dhaawaca ahaa iyo kuwii aabayaashu dhinteen iyo balaag imika 9 qof markii ay odayga dhintaa hooyadoodna umul raacday dadkii ka dhiidhiyey ee dhiig ka kacay ee islaamnimo uga kacay qabiil baa uga kacina islaamnimo uga kacay waa ilaahay xasanaad ka siiyo ilaahayna ka khayr mariyo dhammaantiina way ku waaninaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaalayaal ka soo qayb qaata dhammaystirka gurigan loo dhisayo carruurta agoonta ee ku dayacan deegaanka heegaale isla markaana agoonta iyo rajada ah